ما سوجدين كل جي هاي أو لكن دي ملهن kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad adduunka ka joogtaan halka naga daawanaysaan waa barta YouTube-ka aan ku leenahay Burhan Channel sidoo kale si toos ah deertaan waxaan nooga daawanaysaan isla barteena Burhan Channel ee Facebook inta uu socdo barnaamijkeeni ahaa Somali Celebrity News waxaad ku daawan doontaan maxaa ka jira warka baraha bulshada la wareejinayo ee ku saabsan inay Haykal iyo waliba boqorada isteelka ay isdagaaleen sidoo kale inta uu socdo barnaamijkeena waxaad ku daawan doontaan cadeemo rasmi ah ee sheegaya in Catoosh Yare uusan furin xaaskiisa muuqaal qarsoodi ah oo aan helnay ayaa halkan ku daawan doontaan qodobadaas iyo qodobo kale ayaad inta uu barnaamijkeena socdo ku daawan doontaan fadlan hadii ay ku tahay markii ugu horeysay muuqaalka like noo saar waxa markii ugu horeysay galabta kasoo tagtay jecelkeedii boqorada isteelka ayaa ah gabar caan ka ah baraha bulshada sidoo kale dhawaan ayay waxa ay TikTok ka gashay 1 milyan sida aad wada ogtihiinba boqorada isteelka waxa ay xiriir jacayl u kala dhaxeeyaa wiil ka soo jeeda Somaliland kaasi oo lagu magacaabo Haykal boqorada isteelka ayaa dhowr bilood ka hor waxa ay Hargeysa u tagtay si ay ula kulanto baraha bulshada ayayna waxa ay kala kulantay dhaleecin aad u fara badan markii ay si qalad ah dad u fasireen tagitaankii ay tagtay magaalada caasimadda ah ee Hargeysa boqorada isteelka waa ay isdifaacday muuqaal kooban oo uga hadlaysa ayayna soo dhigtay muuqaalkana waxaad ku daawan doontaan dhamaadka barnaamijkeenan intaas kadib waxa magaalada caasimadda ah ee Muqdisho yimid Haykal oo ah shakhsiga ay isku haystaan boqorada isteelka Haykal waxa uu magaalada caasimadda ah kala kulmay soo dhaweyn iyo jacayl aad u fara badan sidoo kalena halkaasi waxa ka cadaatay in dhalinyarada reer Muqdisho ee baraha bulshada jooga ay yihiin dad calool fiyow waxa kamid ahaa dadka aadka magaalada ugu kala kiciyay madaxweynaha TikTok Bilal Bulshawi sidoo kale hadii aan idin xasuusiyana Bilal Bulshawi sanad ka hor ayaa waxa lagu xiray magaalada Hargeysa kadib markii uu koob kafay loogu keenay lagu soo sawiray calanka Soomaaliya sharaxaad guudna hadaan idin ka siiyo sababtaasi ayaa waxa ay tahay dawladda Somaliland aysan ogoleen in calankooda calan aan ahayn inta ay ictiraafka ka helayaan magaaladooda caasimadda ah iyo sidoo kale waliba tuulooyinka iyo gobolada ay ka kooban tahay inaan lagu dhex qaadan dadaal badan oo la sameeyay Bilal Bulshawi waxa lagu guuleystay in xabsiga laga soo saaro sidoo kalena waxa laga soo musaafiriyay magaaladaas kadib imaanshaha Haykal waxa ay ka turjuntay sida aan idin sheegayba in dhalinyarada ku nool caasimadda Soomaaliya ay yihiin dad calool fiyow meeshaasi waxa ka muuqday isdhexgal dhinaca bulshada ah ama dhalinyarada kaasi oo aad u sareeyay hadii mowduuceena maanta ama caawa aan ku soo laabanana waxa caawa barteeda YouTube-ka muuqaal kooban soo dhigtay boqorada isteelka taasi oo ciwaan uga soo dhigtay maanta keligay ayaan banaanka soo aaday ama soo afuraya isla markiiba baraha bulshada waxa la soo geliyay hadallo sheegaya in Haykal iyo boqorada isteelka ay isku dhacsan yihiin xiriir badan iyo baaris badan oo aan soo sameeyay waxaan soo xaqiijiyay in weli boqorada iyo Haykal uu ka dhaxeeyo jacaylkii hore uga dhaxeeyay mid ka weyn boqorada iyo Haykal ayaa waxa la soo sheegayaa in aysan kala dhicin sida aad wada ogtihiinba dhalinyarada baraha bulshada ku jira ee Soomaaliyeed ayaa waxa ay gaarayaan 2 milyan oo qof inta og in boqorada isteelka saaxiibkeed uu Hargeysa ku laabtay aad bay u yaraayeen laakiin waxa ka batay inta aan ogeyn safarkiisa ogow boqorada isteelka saaxiibkeed Haykal waxa uu ka safray magaalada caasimadda ah ee Muqdisho oo uu maalmihii ugu dambeeyay uu ku sugnaa sidoo kale safarkiisa ayaa hadda ka soo wareegatay 12 saacadood marka waxaan idin leeyahay waa bil Ramadaani Ilaahay ka baqa ee marka hore intiina degdegin wax soo hubiya ugu dambeyntiina daawadayaal waxa maalmihii la soo dhaafay baraha bulshada hayst inuu furay Catoosh Yare xaaskiisa kaliya furiin ma ahayne xitaa uu jirdil u geystay muuqaal ay soo dhigtay xaaskiisa ayaa waxa ay ku Catoosh uu garaacay cunugeeda curadkaana uu markasta ka dilo sida aad wada xasuusataanba barnaamijkan ka horeeyay ee aan uga hadlaynay xaaskiisa iyo Catoosh ayaan waxaan idinkugu sheegay waxyaabo fara badan oo hadda soo baxay Catoosh Yare xaaskiisa oo muuqaal qarsoodi ah hadeertaan laga soo helay ayaa afkeeda waxa ay ka qiranaysaa waxyaabo aad la cajiibi doontaan Durdur Media Xasan Toob oo ah agaasimaha guud ee hay'adaasi ahna shakhsigii ka dambeeyay in ay isguursadaan Catoosh iyo xaaskiisa ayaan wali ka hadlin
maanta Baabajey, Baaruud iyo waliba Baaquli Boy ayaa waxa ay ka hadleen barnaamijyo aad u fara badan saddexdooda oo isla fadhiyay muuqaalkana isla duubayay ayaa waxa ay ku kala aragti dugnaayeen barnaamijkan Catoosh Yare iyo xaaskiisa. Baabajey oo marka hore bilaaba ayaa waxa uu sheegay in gabadha lagu shaqaystay lagana khaldan yahay. sidoo kale Kabtan Baaruud ayaa hadalkiisa waxa uu ku soo koobay marka horeba ma ahayn in aad xaaskaaga baraha bulshada keento. Baaquli Boy oo ugu dambeeyay ayaa waxa uu yiri anigu waxaan ahay atooro magaal leemana gaadi karo adinka ayay maskaxdiina ku dheedeelayaan labadaas shakhsi laakiin aniga la iguma ciyaari karo. uu ola jeeday waxaan oo dhanba waa iska kala kacsi waana sida aan horay idinkugu soo sheegay muuqaalkii ka horeeyay. haddaba waa kana ila daawo muuqaalka xaaska Catoosh Yare oo mar labaad ka hadashay arintii furiinka ah ee ku saabsanaa nolosheeda. ma balaanan naagla furi waaw maxaa laa idaa iska farxeys mugtido naagaha sabay waxba ii galin naaga dhaqdhaq oo hay waa Catoosh inuu furo maleynooyin inay sabtaan rabaan waay ma fahanti naagaha waa dabaalo walaal dabaalo waay taageereen ya ها marka abaa waxaan ka dhigi kalmal Soomaali Maxamed naagahooda waa iska xambaday waa iska wariif badan yihiin war kasta si wareejaan war been waa wareejiyaan Catoosh meesho igu furiyo cadeen maslaxasa xasaleeyo igu furantaa soo dhahayo ha keenan kadib leeyahay hadlaano dadka qaar waa la furaa iska dhigeysana iska aaminaan dabaalo waa iska dhaafaan ya Catoosh naagaha baabay qaldin wixii oo maxaa dhaxdeena oo soo galiyay ma ogin marka naaga oo nin la'aan hayso waa oo kasto baareen oo yacni inuu Catoosh taa sida maslaxo kale hana gurso camal isdhaa waay yacni ciltira camal u sameeyna camal waay ana naagtiisa ahaa wili ma furin asna ninkeyga waay itu seperti malana kada isfurais marora naga dan isfur lahayn hai walaal hai soo dhawo walaal marka asxaabta waxa waaye ya soo dhawoosin been waa soo qoroosin miya arwaakaas lambarkii waaysin soo wac aba leefka daawanay soo wac hatta waa ka qabanay hadii leefka daawanayo soo wac balaarka walba iyadaba Usmaan Diamond sixir ay ku haastay Usmaan Diamond walba waa sixirta balaarka hatta Usmaan Diamond miskiinka sixirka ka baabay ya sixirka ka baabay ya بسكيت سحر كويس سحر كعكباب على في مشية مركز أصحابها هلو مركز أصحابها مسؤول هذا استغفر الله وحسحر الشيء ما في عينيه سكين طرت لبعتها له جستي يعني عثمان دايمون لكن إنا كرباشنا مرة بيه إنه حاسس قال ما في عناه إنك حاسس كسر جس أو حاسس كلا لقط الشيء إنه بهدلان إنه سكنافة ما يهوجو شغل تمركوا مسكين إنه دون تحل رحمة ما أهم Usmaan Diamond horta ragii horta inay isxayaan soo jeesteen Usmaan Diamond ani madaxu ii saaran yahay macaanay halo yaaway Ahmed ke
daawada haddii ay ku tahay markii kuugu horeysay oo muuqaalkeena ku soo gaaro waxaan ka codsanayaa marka hore inaad muuqaalka aad like saarto aadna ka mid noqoto kumanaanka kun ee ku xiran baraheena social media sida Facebook iyo waliba YouTube-ka mahadsanidin.